halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban ku FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo internetka oo ciwaankayagu yahay bbcsomali.com. arooryo suuban idilkiin baa khayaartana dhegaysatay waa sabti 18 abriil saacadda Afrikada Barina haatan waxay tilmaamaysaa 7 oo gowa. wararkaanu idaacaddan subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid ah halistii koroonaha iyo sidee saaka uu adduunka ugu bariyay. WHO sheegtay in Afrika uu afayn doono COVID-19. Soomaaliya waa sidee xaaladeedu. suuqa isliya Nairobi oo gabi ahaantiinba la xidhay. ganacsatada go'aanka gaadhay baa faahfaahinaysa. waxaan aragnay in suuqii halis badan ay ka muuqato markaan tashanay guddiga ganacsatada iyo laamaha amniga wayaan go'aan ku gaarnay in suuqa la xiro si ku meel gaar ah ilaa shuruudihii caafimaad ee loogu talagalay la dagaalanka cudurka COVID-19 loo yaqaano. Kanada oo caawimo u bilowday muwaadiniinteeda iyo soo galootiga bilaa sharciga oo aan waxba ka helayn. soo saaraha barnaamijku waa Ciise Xaaji Cabdullaahi oo Axmed Nagaashiina waan idinla socodsiinayaa. subax wanaagsan saaxiibayaal. waa tahay qodobadaas oo faahfaahsanahay noo dambeeyaana dhegaystayaal bal marka hore warkii dunida iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cali. Cabdiqaadir. mahadsanid Nagaashe. madaxweyne Trump ayaa difaacay qoraallo isxigxigay oo uu soo dhigay barta Twitter-ka kuwaasi oo uu kaga soo horjeeday bandowgii lagu soo rogay gobollada Minnesota, Michigan iyo Virginia oo ay saddexdaba barsaab xubin ka yihiin xisbiga dimuqraadiga. hadaljeedinta aqalka cad ayuu Trump ka sheegay in tallaabooyinka xadidaadda ee lagu soo rogay gobolladaasi ay aad u adkaayeen. waxa uu sidoo kale ku dhawaaqay in 19 bilyan oo dollar ugu deeqayo beeralayda uu saameynta ku yeeshay xanuunka COVID-19. isla Maraykankuna gobolka New Jersey oo aad u saameeyay fayraska corona ayaa sheegay in dhakhaatiirta ajnabiga ah ee tababaran ay siinayaan ogolaansho ay uga shaqeeyaan gobolkan ay ku habsatay musiibada. barsaabka ayaa sheegay in gobolkiisa uu noqon doono gobolkii ugu horreeyay ay ka faa'iidaysta dhaqaalihiisa. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa shaki gelisay muhiimadda baaritaanada difaaca jirka ee coronavirus. waxaa la sheegay inaysan jirin caddayn muujinaysa in qofka uu haleelay xanuunka COVID-19 uu isbeddel dhanka difaaca ah ku soo siyaadayo. dalkaasi Brazilna waxa uu ku dhawaaqay tiradii ugu badnayd ee dhimashada maalinlaha ee COVID-19. 217 dhimashada ah ayaa tirada guud ee dalkaasi ka dhigaysa in ka badan 2,100 qof. Brazil ayaa ah dalka ugu daran ee uu xanuunkan aadka u sameeyey Latin America. ugu dambeyntiina madaxa shaqaalaha dalkaasi Nigeria Abba Kyari ayaa geeriyooday kadib markii uu haleelay coronavirus. Kyari oo ku jiray da'da 70-meeyada ayaa horay ula tacaalay xanuuno badan. bishii Maarso ayaa laga helay fayraska corona iyadoo tan iyo xilligaasina la tacaalayay xaaladiisa caafimaad. waxaa loo arkayay inuu ahaa mid ka mid ah dadka ugu awoodda badan dalkaasi Nigeria. warkii subaxnimona waa naga inta Axmed. aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Yuusuf Cali oo warkii subaxnimo inoo marinayay ayuu kaasi hayay. dhegaystayaal u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda. waa tahay dhegaystayaal aan ku bilaabay sidii aad wararkaba ku maqlayseen. madaxweyne Trump ayaa sheegay oo taageeray aan idhaahdee mudaharaado lagu doonayay in xayiraadda lagu xakamaynayo coronavirus dalka gobollo ku yaala dalkaasi Maraykanka laga qaado. waxaanu yidhi waa in dadka xorriyadooda la siiyaa. shir sharaa'id oo uu ku qabtay aqalka cad ayuu ku sheegay in xayiraadaha ay soo rogeen gobollada Minnesota, Virginia iyo Michigan ay yihiin kuwo aad u qallafsan oo aan loo dulqaadan karin. barasabada saddexda gobol ayaa dhammaantoodba waxay ka tirsan yihiin marka si kale loo eego xisbiga dimuqraadiga. arrintaas iyo wararkii kale COVID-19 ugu waaweynaa iyo waxaa inoo hayaa Ciise Xaaji Cabdullaahi oo haatan stuudiyaha ila fadhiya. Ciise. axmed, madaxweyne Trump waxa uu leeyahay hal xoreeyo dhammaan goboladan saameynta ba-an uu ku yeeshay cudurkan COVID-19. goboladan waxaa ka mid ah Minnesota oo ay Soomaalidu ku badan tahay oo haatan xayiraad culus ay ku jirto oo dadkii dhaqdhaqaaqi iyo wax walba laga joojiyey. Michigan iyo sidoo kale gobolka Virginia. madaxweyne Trump waxa uu bartiisa Twitter-ka ku soo dhigay oo ku qoray qoraallo ay ku qoran yihiin xoreeya Minnesota,
xoreeya Michigan, xoreeya sidoo kale Virginia. Dadka ayaa waxaa looga digay in aysan guryahooda ka bixin oo ay ku sugnaadaan guryahooda iyadoo dhaqaatiirta caafimaadkan ay la tacaalayaan cudurkan. hase aatee dadka ayaa haatan waxaa loo arkaa in ay banaanaha u soo baxayaan iyagoo dibadbaxaya oo hadalkii Trump qaadanaya. Maraykanka haatan halka uu maraya xaaladiisa way ka daran tahay Shiinaha. 4,591 ku dhowaad 5,000 oo qof ayaa shalay oo keliya dalka Maraykanka cudurkan ugu geeriyootay. Axmed, dalka Nigeria haddaan fiirino madaxa shaqaalaha madaxweyne Muhammadu Buhari Abayari ayaa shalay geeriyooday cudurkan ayuuna u geeriyooday. Kayari da'diisii 70aad ayuu ku jiray, cudurro kale ayuu qabay. hase aatee bisha Maarso ayaa cudurkan laga helay, waxaana loo arkayay nin saameyn baan ku leh dalkaasi kadib markii laga soo tago madaxweyne Buhari. dalkanna ilaa 500 oo kiis ayuu haatan xaqiijiyay Nigeria, oo iyadoo 7 qofna ay u dhinteen ilaa haatan. haddii aynu eegno dalka Sacuudiga, muftiga weyn ee dalkaasi waxa uu ku dhawaaqay Sheekh Cabdulcasiis Sheekh in maaragtay bisha Ramadaan oo haatan ay ka harsan tahay 6 casho. waxa uu sheegay in taraawixiga iyo maaragtay salaada tahajudka iyo salaadaha kale dhammaan guryaha lagu oogi doono, sababta ay tahayna cudurkan awgiis in loo joojiyay dadkii inaysan isku imaanin oo la kala fogaado. waxa uu sheegay sidoo kale ciidda in guryaha lagu dabaaldegi doono. marka waxaad u malaysaa in xaaladii ay gacanta kasii baxayso iyadoo Ramadaankii haatan uu soo galay. Sacuudigana ilaa 7,000 oo kiis ayuu haatan diiwaangeliyay iyadoo 83 qofna cudurkan laga helay. marka ilaahiyaha inoo fududeeyo bishii way nagu soo socotahay. amiin ciisow, ilaahay ummadda muslimka iyo guud ahaanba ha ka dulqaadayaynu inaguna leenahay cudurkan halista ah ee dadkii iyo dunyadiiba kala xidhay. waa tahay dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee BBC da wararkii cudurka iyo sida ay saadka xaaladuhu yihiin ayaynu ku jirnaaye. Soomaaliya iyo halka xaaladda cudurkani marayso waxaa isaguna goor dhoweyd faahfaahintan iga siiyey wariyaha BBC da Ibraahim Maxamed Aadan. axmedow 24 saac ee ugu dambeysay waxaa la diiwaan geliyey tiradii ugu badnayd ee maalin qura uu cudurku ku dhaco gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. 47 qof oo baaritaano lagu sameeyay ayaa 36 ka mid ah waxaa laga helay cudurka, taasoo ka dhigaysa tirada cudurka ee laga helay gudaha Soomaaliya 116 qof. bukaanada cudurka laga helay 27 ka mid ah waa rag, 9 kalena waa dumar. waxaa cudurka COVID-19 ugu geeriyooday Muqdisho 24 saac ee lasoo dhaafay 1 qof, taasoo tirada guud ee tan iyo markii cudurka Soomaaliya looga dhawaaqay bartamihii bishii hore ee March ka dhigaysa 6 qof. saraakiisha wasaaradda caafimaadka ayaana warbixintan xalay ka sheegay magaalada Muqdisho, iyagoo dadweynaha ugu baaqay in ay ka feejignaadaan cudurka islamarkaana ay raacaan tilmaamaha iyo fariimaha ka imaanaya saraakiisha wasaaradda caafimaadka. aad iyo aad buu mahadsan yahay Ibraahim Maxamed Aadan oo faahfaahintii ugu dambeysay halka xaaladda cudurkaasi ay maraysa ee Soomaaliya goor dhoweyd ii faahfaahinaya ayuu kaasi haa. dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa tahay saaka wararkeenu waxay u wada badan yihiin cudurka iyo saameynta uu dunida ku yeeshay. guddiga ganacsatada ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa waxay sheegeen inay go'aan ku gaadheen in gebi ahaanba suuqaasi la xidho ilaa iyo inta ay hoos u dhacayso fiditaanka cudurkan COVID-19 iyo halistiisuba. waxaana intaasi ku dareen guddigu in sababta ku dhalisay arrintani ay tahay inay xaqiiqsadeen in ganacsatada qaarkood aanay ku dhaqmaynin talooyinka caafimaad ee wasaaradda caafimaadka dalku soo gudbisay. Cumar Xuseen oo ah gudoomiyaha guddiga ganacsatada Islii ayaa faahfaahinta go'aankooda waxa uga warramay Axmed Xaaji Xasan. markaan tashanay guddiga ganacsatada iyo laamaha amniga ayaan go'aan ku gaarnay in suuqa la xiro si kumeel gaar ah ilaa shuruudihii caafimaad ee loogu talagalay la dagaalanka cudurka dilaaga ah oo faafa oo COVID-19 loo yaqaano. waxaan aragnay in suuqii halis badan ay ka muuqato. halista ka muuqato suuqa maxaa ka mid ah oo keenay in go'aankan la qaato? halista ka muuqato waxaa ka mid ah suuqan waa suuq ballaaran oo weyn, populationkiisna aad u badan yahay, dadka oo ka ganacsanaysa waa fara badan yihiin, meel kastana waa ka imaadaan waddanka gudihiisii. marka waxaan aragnay suuq waxaa loogu talagalay nidaam ayaa jira wasaaradda caafimaadka ay soo dejisay ah in suuq mool kaste oo
qof la hor istaajiyo sida supermarketyada camal markii la galayo moolka hortiisa qof uu taagan yahay biyo gacmo dhaq oo saabuun leh in meesha ay yaalaan thermometer ama bahasha lagu cabirayo temperature ama kuleelka jirka lagu cabirayo inuu qofka haysto oo qofkii galayo uu cabiro markuu soo baxayo qofkii galayo cabiro dadka galayna ay distance ay maarta loogu talagalay qofka kale inuusan usoo dhawaan 1 mitir iyo ka badan inuu u jiraado nidaamkaas kama jirin iyo dadkii gudaha ku ganacsanay naftinkooda inay maarta sanitizer ama qofka markuu imaado waa inuu mask wata waxa wajiga lagu xirtaa waa shuruud masti ah yacni laga dhigay laazim in qof kasta uu xirto marka dadka badankiisana ma xirtaan oo ganacsatada suuq gudihiisa iyo dadka banaanka imaadana ma xirtaan gacmo dhaqi fiican ma laha oo saabuun oo loogu tala oo jirisha jeermiska ma haystaan suuqyada badankooda meelo badanna ma yaalaan dadkii kala celintooda iyo 1 mitir inay kala fogaadaan loogu talagalay meesha kama jirto marka waxaan dareennay in halis khatar ah ay ka imaan karto dadkaas socodka iyo nidaamka ay meesha ka wadaan oo hadhow oo ka dilaaci kara cudurkaas hal qof hadduu ka dhaco Soomaaliya oo meeshan gudihiisa in cudurka si dhaqsiha u faafi karo ayaan ayaan istusnay marka waxaan nidhi ilaa shuruudahaas laga buuxiyo si ku meel gaar inuu suuq u xirnaado dibna loo furayo haddii shuruudihii lasoo buuxiyo halistu way basii jirtay ilaa hadda inta la xaqiijiyay 2 qof oo Reesli ahaa la sheegay inay u dhinteen cudurka oo Kenya marka suuqa hadda haddii la xiro oo go'aankan aad soo saartaan kadib isleedahay dadku u hoggaansami karaan haddii tukaamadii dib loo furo dad badan way imaanayaan markasta oo si ay u adeegtaan oo alaabtii u gataan waxaan isleenahay dadka horta waa wacyigelin bay naga tahay maxaa loo xiray horta haddii la isweydiiyo qofka wuxuu leeyahay waxaa loo xiray suuqii shuruudihii loogu talagalay caafimaadka wasaaradda caafimaadka ay soo dejiyay ayaa la fulin waayay qofka marka dib u xisaabtamaya wuxuu samaynayaa maxaa la iga dhiman maxaa looga baahan yahay qof inuu albaabka u istaagnaado oo dadka control u kala geliyo 1 mitir ay isu jirsadaan dadka meesha gudaha galay hataa waa inuu controlo inay tiradii loogu talagalay meesha ay overcrowding ama dad badan ay hal meel iskugu imaadeen cudurkan waa ogtahay waa cudur maarata isla markii si fudud lasku dhaafsin karo waaye marka waxaan islenahay haddii xiritaankan inay daawo ka imaan karto oo dadkii dareen badan ay qaadayaan oo wixii loogu talagalana ay samaynayaan dibna ay dadkii maarata suuq u furan karaan oo maarata shaqadii sidii caadi ay usoo laaban kartaan aaminsannahay markaa eegno maciishada daruuriga ah sida cuntada kuwa ayaga muu saamaynaya go'aankan hadda ee xiridda maadaama dad badan ay ku tiirsan yihiin oo u baahan yihiin ma saameynayo kuwaas waxay ku saameynayan waxyaalaha asaasiga ah oo loo baahan yahay la xiri karin dawladdaaba ku dhawaaqday sida cuntada daawooyinka waxyaalihii muhiimka ah sidaas oo kale waa furnaanayaan laakiin qeybaha kale oo dharka iyo meelihii oo suuqa dharka ugu badan yahay iyo meelahaas iyo suuqa sarifka zoonkaas ayaa meelahaas inaan xirno ayaan go'aansanay laakiin wixii kale oo asaasi ah oon laga maarmin day to day-ga ah waa furnaanayaan hadday shuruudaha buuxin waayaan ka waran in faradhaqii meesha ay keenaan oo biyihii lagu farxalanayay saabuuntii haddiisan meesha ay oolin dadkii inay dukaankii gudaha isla galaan ay buuxiyaan hadday taa imaato maxaa dhacaya marka waxaa dhacaya annaga keliya ma aha annaga waxaana la soo xiriiray wasaaradda caafimaadka dad ka socda iyo dadka amniga haddii qofkii shuruudahaas laga buuxin waayo hadda ka horna waxaa loo soo qoray mool kasta inuu shuruudahaas buuxiyo qofkii buuxin waayo moolkiisii iyo mise meesha suuqiis meheradiisa waa la xirayaa haddii la xiro intii kalaa ganacsanayd meeshaas waa xirnaanaysaa ilaa ay shuruudaha ay ka buuxiyaan waxaana fulinaya arrintaas oo xaqiijinaya laamaha amniga iyo wasaaradda caafimaadka cumar xuseen guddoomiyaha guddiga ganacsatada isliya oo warramaya axmed xaaji xasan ayuu kaasi ahaa qaar ka mid a dhegeystayaasha b b c da ayaa aragtidooda ka soo dhiibtay halkan oo fariimahooda noo soo marinayay facebooka waxaana ka mid a dadkaasi faarax maxamed xirsigood oo jooga magaalada gaalkacyo waxaanu leeyahay cudurkan coronavirus wuxuu u muuqdaa mid si lama filaana ugu fidaya dunidii oo dhan waxaa kaloo muuqata buuhi in dadka soomaaliyeed intooda badani aanay ku baraarugsanayn halista uu cudurkani leeyahay islamarkaana aanay dheg jala qusiinaynin talooyinka bahda caafimaadka ee ka hortaga u noqon kara xanuunkan ay dirayaan waxaana arintaasi ka dhalan karta feejignaan-aanta ah buuhi in dadka uu dhibaato weyn u geeyo u soo hooyo cudurkani si dhaqsaana uu ugu fido dalka oo dhan ilaahay amuuraha hab sahlo ayuu yidhi waxa uu ahaa faarax maxamed oo aragtidiisa ka dhiibanayay dhibaatooyinka cudurkan ee dunida guud ahaanba ka taagan waa tahay dhegeystayaal wararkaas ayaynu weli ku jirnay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka dardaar warisay xaaladda afrika oo sheegtay inay qaaraddu noqon karto halka kale ee dunida cudurka covid-19 ugu badnaan doono toddobaadkii hore ayaa tirada dadka uu cudurku ku dhacay ee qaaraddu ay aad kor u korodhay oo waxaa la xaqiijiyey in ay gaadhay 18 kun oo qof iyo dheeraad dadka ay ku dhacay cudurku dhimashaduna ay kor u dhaaftay 900 oo qof fartuun ismaaciil ayaa warbixinta inoo haysa afrika iskeed ayay isu geesinimo gelinaysaa dalalka qaar qaaraddu waxay wajahayaan xawliga kiisaska covid-19
ma doonaya inaan muujiyo sawiro murugo leh walow xaaladda ay aad u caddahay inay culays wajihi doonto afrika waa inaan u diyaargarowno ayna tanina dhiirigeliso inagoo go'aan leh. doctor matshidiso moiti waxay hogaaminaysaa barnaamijka WHO ee ka hortagga faafitaanka afrika. waa inaan sheegaa maanta in 47 waddan ay soo wariyeen kiisaska covid-19 tusaale ahaan koonfur afrika waxaa ka jiraan kiisaska ugu badan wuxuuna ku faafay gobolada koonfur afrika oo dhan. halka ugu daran waa Gauteng oo ah kan ugu horumarsan uguna dadka badan ayna yimaadaan diyaaradaha caalamiga ah ee ugu badan. dalalka kale sida Nigeria, Ivory Coast, Cameroon, Ghana iyaguna waa la mid. waxaynu aragnay in fayrasku isku ballaariyay meelo ka baxsan caasimadda. kiisaska qaar waxay ku faafeen dalka oo dhan. dalal afrika ah ayaan bahaysan agabkii lagula tacaali lahaa haddii dad badan ay u baahdaan isbitaal iyo daweynta xaalad degdeg ah. keliya waxaa jira 5 sariiraha xaaladda degdega ah oo loo heli karo 1 milyan ee qof badi wadamada afrika, taasi oo u dhiganta ku dhowaad 4,000 oo sariirood 1 milyan oo qof ee Yurub ku nool. waxaanu doonaynaa inaan yareyno saamiga dadka gaari doona baahida xaalad caafimaad oo degdeg ah, waayo waxaynu ognahay in xarumaha noocaasa aysan ku filnayn haba yaraatee inta badan wadamada afrika. dhammaan arrimahan iyo baahida dunida ee qalabka badbaadiya shakhsiga ayaa ku haya walaac shaqaalaha caafimaadka sida kalkaaliyahan reer koonfur afrika oo aadka u walwalsan. waxaynu dareemaynaa in nala dayacay, nala xafidin, aanan nala taageerin iyadoo tirada caabuqyada dalkan ay kordhayaan. maalin walba marka aynu toosano nafteenna ayaynu u cabsannaa. dalalka sida koonfur afrika, ruwanda iyo kenya ayaa dhammaan amray xayiraado ku jihaysan dhaqdhaqaaqa si loo yareeyo faafitaanka, laakiin dhibaato gaar ah ayay ku tahay qaar ka mid ah dadka bulshooyinkan. aad bay u adag tahay haddii aad ku dhex nooshahay qoys dad kala da-duwan sida dad badan oo afrikaan ah ay u nool yihiin. wayna adag tahay in guri aan aad u weyneyn aad kula jirto qoyska oo dhan. waa inaynu isku caawinaa helitaanka biyaha iyo saabuunta. ururka caafimaadka adduunka ayaa leh weli waxaa jira waqti looga hortago faafitaan baahsan oo aan ku aragnay meelo kale oo afrika ah. qaaraddu waxay horey si guulah uga guulaysatay faafitaanka cuduro badan oo dilaa ah, laakiin cudursidahan cusub afrika waxay u baahan tahay in si habboon loo diyaargaroobo si loola dagaalamo. mahadsanid fartuud. halkaad weli nagala socotaana dhegaystayaal waa BBC. kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada, dalka, guud ahaan bariga afrika iyo caalamkaba. barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyagoo oo maqaliya muuqaalba leh. warbixinnadii ugu dambeeyey, waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn, bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla marka ay dhacayaan. ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook. booqo oo kala soco moobaylkaaga wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com. mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com. waa tahay bal haatanna xagga haya Kanada. dowladda Kanada ayaa bilowday caawimo maaliyadeed oo ay siinayso muwaadiniinta dalkeeda iyo dadka sifaha sharciga ku jooga ee deganaanshaha ku haysta, maadaama oo cudurka coronavirus ee dunidii ku fiday uu dhaawac weyn gaarsiiyey dhaqaalihii dalkaasi oo xayiraadaha lagaga hortegayaana ay kalifeen in aanay dadkii isku socon karin. haddaba waxaa jira kumanaan qof oo dalkaas sifo sharci darro ah ku galay oo aan helaynin caawimada ay dowladdu bixinayso. hase yeeshee waxaa haatan dadaalla bilaabay ururo u dooda xuquuqda aadanaha oo dalka ka jira oo ku tirtirsiyaya xukuumadda in aanay dadkaasi iloobin. bashiir xaaji cali oo ah guddoomiyaha hay-ad la yidhaahdo iskarda oo saldhiggeedu yahay gobolka alberta ee dalka Kanada ayaa iiga warramay xaaladda dalkaas iyo waxay haatan tareenba.
walaalow waxa weeye dadka aan sharciga lahayn ee ku nool dalka Canada ma helayaan xuquuqda ay helayaan ama caawimada ay helayaan dadka dhalashada Canadianka haysta ama dadka haysta deganaanshaha. sababtuna wax kale maaha, waxa weeye dadkani ma haystaan waraaqihii ay ku heli lahaayeen ama ay ku dalban lahaayeen mucaawinadan, waayo dadkan aan haysan sharciga waxa had iyo goor la siiyaa waxyaalo ku meel gaar ah, waraaqad ku meel gaar ah waayo ama ku shaqaystaan ama ay iskuulada ku tagaan ama dhakhaatiirta ku tagaan. marka uu systemka qofku is yidhaaho geli waraaqaha numberiskooda, systemkii ma aqbalayo. waxa laisku siinayaana waa system oo iminka maaragtay xafiisyo furan oo la tegayaa ma jiro. marka dadka wallahi Axmed oo dhibaato badan baa ka haysata. idinku hay-ad waxaad tihiin u ololaysa in xuquuqda dadkaas oo galootiga ah la ilaaliyo oo wax alaaliyo wixii lala qaban karayo ay la qabato oo ay dowladdu saacidaysa ka shaqeeya. ilaa haatan tallaabo ma qaadeen dadka aad ugu gurmanaysaan? Axmed, waanu qaadnay, waxaanu waraaqa u qornay dowladda Canada ee federaalka ah iyo dowlad goboleedkan aanu ku noolahay Alberta. dadkaana cabashadoodii waanu gaadhsiinay ilaa prime ministerka iyo ilaa halkan governorka gobolkan Alberta. jawaab fiicanna waanu ka sugaynaa. keligaya maaha, hay-adaha u ololaya xuquuqda aadamaha iyo qolyaha dejiya dadka soo galootiga ah waanu iskaashanay. in ka badan ilaa 50 hay-adood baa warqado qoray si dadka xuquuqdooda maaragtay loo siiyo ama loo sameeyo special status ama tixgelin gaara. marka rajo wacan baanu qabnaa Axmedow. taasi waxa weeye tii xuquuq u doodidda iyo hadalka in dadka lagu taageero oo codkoogu meel aanu gaadhayn aad gaadhsiin lahaydeen. ma jirtaa wax kale oo aad qabateen idinku ama hay-ado kale oo khayrihi ay dadka cunno iyo wixii ay u baahan yihiin ee gacan qabashaha ay ugu fidinayaan ilaa hadda? Axmedow, horta waad ogtahay dalku waa kala xidhan yahay. meelihii xataa wax laga qaadqaadan jiray sida food banki ama meelihii kale ee dharka dadka loo geen jiray, horta waxaasoo dhan way xidhan yihiin. midda kale dadkani de waa dad halkan joogay, sharci un bayan lahayn. waa dad halkan ama dadkooda la noolaa ama arday ah oo dee weli iska nooloo guryahoodiina ku jira. dadka ay la noolaayeen sidii ula nool marna ku soo dhici maayaan. dadkani cidlo kusoo dhici maayaan oo baahi guri iyo baahi cunto midna ma jirto. laakiin de hadday arrinkanu sidan kusii socdo way imanaysaa. laakiin ka Soomaali ahaan haddaan kuu sheego, inagu de dad waxaynu nahay isku noolo maaragtay arrintan waa ka dabaalan karnaa. laakiin dhibaatada ugu badani waxay soo food saartay dadka kale ee ajnabiga aan iyagu ahayn systemka inagu aynu ku dhaqanno ku maaragtay iscaawinta ahaa. inta aad ka warqabtaan dadka Soomaalida ah ee ama gobolka Alberta joogta ama guud ahaanba Canada ee dhibtani ay haysato, ma cabiri karaysaa tiradooda inta lagu qiyaasi karo? tiradiioo kooban hadda kuma sheegi karo, laakiin qiyaas ahaan dadka bilaa sharciga ah ee dalka jooga kama yaraan karaan. markay ugu yaraato 5,000 way kor bay u dhaafayaan. sababta waxa weeye waa taad ogeyd intii aan la baasgarayn sharcigan maaragtay la xadidayo dadka ka soo gelaya xuduudda Maraykanka iyo Yurub. dad badan baa Soomaaliyeed baa soo galay ilaa 3 sanadood ugu dambeysay. marka tiro ahaan waxaan filayaa inay ka badan yihiin 5,000 oo qof. bashiir xaaji cali oo ah guddoomiyaha hay-adda Skarda ee saldhigeedu yahay gobolka Alberta ee dalka Canada ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka iigu warramay oo faahfaahinayay duruufta haysata dadka soo galootiga ah ee aan sharciyada ku haysanin dalka Canada. ka qaybgal barnaamijyada laanta af Soomaaliga ee BBC oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxa ay tahay text message. telefoonka nambarkiisu yahay 4477 862 kadib waxa ay kula tahay BBC Soomaali. waa tahay dhegeystayaal, weli waxaynu ku jirnaa wararkii cudurka coronavirus iyo covid-19 ee dunida saaqay. dhegeyste kale oo aragtidiisa ka dhiibanaya arrintaasi ayaa isaguna facebooka fariinta noo soo mariyey. waxaa la yidhaahdaa maxamed axmed bulaale oo jooga Taleex. waxa uu yidhi hadalka ka soo yeedhay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ee ah inuu xanuunka covid-19 afayn doono qaaradda Afrika waa arrin warwarkeeda leh. waxaanan alla ka baryayaa buuhi inuu siiba Soomaalida iyo aad uga badbaadiyo haddii uu ku dhacana dadkaasi ay ku halagmi doonaan, maadaama oo haatan laga helay buuhi dadka Soomaalida ee laga helay tiradoodu ay gaadhayso 116 halka 5 qofna inay u dhinteen la sheego. waa in talooyinka caafimaadka dadku ay qaataan oo allana la tala saarto ayuu yidhi. wuxuu ahaa maxamed axmed bulaale oo Taleex jooga oo fariintiisaasi ka dabageynayay warkii aanu idiin sheegaynay ee ahaa in ay
hay-adda caafimaadka adduunku ay ka dardaar warisay xaaladda afrika iyo cudurkaasi sida ay noqon doonto. hase ahaatee dhegeystayaalow, sidaas oo ay tahay haddana quus dunidu weli ma taagna oo waxaa soo baxaya warar yididiilo leh oo sheegaya in saynisyahano ka tirsan jaamacadda Oxford ee dalka Ingiriisku ay sheegeen inay soo saari doonaan ugu yaraan 1 milyan oo irbadood oo tallaal loogu talagalay in wax lagaga qabto cudurkan coronavirus oo ay soo saari doonaan bisha Sebtembar ee sanadkan. rajo weyna ay qabaan. ciise xaji cabdile ayaa wararkaasi isha ku hayay oo haatan stuudiyaha la fadhiya. bal ciise haddana oo faahfaahay waxaanay sheegeen khubarada Oxford. axmed, caalamku sidaad sheegtay weli maba ka quusanba in maaragtay cudurkan daawo loo helo. dalalka Maraykanka iyo dalalka kale ee caalamka ugu quwadda weyn ayaa bilihii lasoo dhaafay waxay ku guda jireen qaabkii ay maaragtay u heli lahayeen daawada cudurkan loogu hortegi lahaa, iyadoo dalalka qaar sida Maraykanka ay sheegeen bisha 6 ilaa bisha 9 ilaa sanadka dambe in rajadu ay tahay marka ugu horeyso ee daawadaas la ballan qaadi karo. hase haatee dowladda Ingiriiska oo mashruucan jaamacadda Oxford taageerayso ayaa sheegtay inaanay jirinba wax damaanad ah islamarkaana aanay suurtagal ahayn in muddo loo qabto soo helidda talaalkan. bukaanka ugu horeeya ee ka qayb qaadanaya in lagu talaalo tijaabada ay Oxford wado ayaa la filayaa in talaalka lagu tijaabin doono toddobaadka dambe ee soo socdo. hase haatee weli lama ogaan karo waxtarka talaalkaasi yeelanayo. khubaradu badankooduna waxay weli qiyaasayaan axmedow inay qaadani doonto muddo 12 ilaa 18 bilood ah in la helo talaal oo soo saarkiisu uu bilaabmo. ciise, talaal dunidu waa tan oo wadan kasta uu ku foogan yahay sidii xal loogu heli lahaa, laakiin marka fayrasyada laga hadlayo bal hadda talaalku waa noocee, siduu soo shaqeeya? talaalku sidiisoo waxa uu habdhiska difaaca ee jirka u diyaariyaa axmedow sidii uu uga hortagi lahaa in cudurka uu ku dhaqo qofka sida COVID-19 oo kale ah qabka uu qofkaasi uu ku dhacay. marka haddii dad badan oo dunida ku nooli ay adkaysi u yeeshaan waxay arrintaasi coronavirus ka hor joogsan doontaa inuu fido, oo ah in dadku kala fogaadaan qasabna ma noqonayso. qiyaastii 80 kooxood oo dunida oo dhan ku kala filiqsan oo ay ku jiraan shirkadaha waaweyn ee daawooyinka samayso ayaa ku fogaan ama ka fikiraya sidii ay talaal u heli lahaayeen. qaarkoodna durbo waxay marayaan tijaabadii lagu eegi lahaa aadamaha. cilmi baaristuna oo dunida ka socoto axmedow aad bay u xooli badan tahay. howl sanado badan qaadan lahayd ayaa lagu soo koobayaa bilooyin. khubaradan Oxford wax faahfaahina ma ka bixiyeen waxanay sameeyeen wuxuu yahay? axmed, saynisyahanada Oxford waxay marka horeba diyaargalow ay ugu jireen in xaaladan COVID-19 oo kale dhici karto intaanu cudurkan dunida ka dhicinba. waxay hore u sameeyeen fayraska ku dhaca daanyeerada nooc ka mid ah oo hidisidayaashu wax laga bedelay sida uu noqon lahaa lafdhabarta talaal cusub, kadibna waxay isku daraan qayb ka mid ah fayraska cusub ee coronavirus. natiijada ay filashada fiican ka qabaan waxaa weeye inuu soo baxo virus aan wax yeelo lahayn oo habdhiska difaaca jirka barasida uu ula dagaalami karo COVID-19. dunidu way ku kala aragti duwan tahay oo waxa la leeyahay muddada uu qaadan karo ee uu ku soo bixi karo talaal wax lagaga qabtaa way kala duwan tahay. qoladan Oxford iyagu ma sheegeen goorta uu ka ay wadaan diyaar noqonayo? cilmi baarayaashu waxay ku rajaweynayeen axmed in talaalkoodaas oo waxtari laha uu ku soo bixi doono dhowr bilood gudood, laakiin haddii xayiraada dadka lagu soo rogay ee qudheedu waxtar yeelato waxaa dhici karta intaasi saameyn taaban ku yeelato maadaama uu tirada dadka coronavirus ku dhacayo yaraan doonto oo ay keeni doonto inay dheeraato muddada lagu ogaan karo waxtarka talaalku. waxaa socdo dooda ku saabsan inay khatar noqon karto in dadka si bareera fayraska loogu daro muddo si natiijo degdeg ah loo helayo in kale. aad iyo aad baad u mahadsantahay ciise xaji cabdile. wararkaas ugu dambeeyey ee rajada iyo yadidiilada dunida u abuuraya ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddii subaxnimo. waxaa inoo ballan ah 2 duurnimo inta ka horeysase sidaas iyo nabadgelyo.